shirkaas waa shir loo qabanayo wadanka Soomaaliya oo aanu jaarnahay shirkaas shir annaka khuseeyo hadii aanu Somaliland runtii maaha waxaan rajaynaynaa wax runtii wanaagsan ay uga soo baxaan gobolka لكن الصومالية سوميت كلية ما هم مدحوينها دولة الفدرال كالصومالية يدك قيب قليل واحد هذا حدوده دلك الصومالية الأورنجري وامد Somaliland waxay leedahay xuduud caalamiya oo la yaqaano madaxweynaha Soomaaliya maaha madaxweynaha Somaliland maaha Somaliland Soomaaliya maaha waa laba wadan oo jaara weligood bis taariikhiin asaasi ahaan jireen لكن عالم كودن bay isugu imanayeen kasto Ingiriis qaban qaabinayo maxaad uga qayb gali weydeen maxay diintii waxaan uga qayb galin ma baahdo shir runtii noqosay annaka wasiir ma la soo xiriiro ma idin sheegay marka dawladdan Britain qaban qaabinaysa shirka waa ka warhaynaa laakiin runtii nalkuma marti qaadin waxyaabo ugu waaweyn ee dawladda federaalka Soomaaliya ay codsanayso waxa kamid ah in la qaado cunaqabatayntii dhinaca hubka arintana wad ka hadashay balka waran wallahi di kulliba maadaama aanu nahay wadan kamid ah gobolka يعني قبل كورنتي ما تحب هي نبض بو بهي هي وحول بما تقان uga muhiimsan dabcan warwarkeeda leedahay marka de wadan gobolka kamida la hubeeyo ama ma taqaan abaabul ciidan u galo marka ma ogoladeed idinku in cunaqabatayntii ilaa haatan la qaado anaku warwarban runtii arrinka ka qabnaa waxaan cabsi naga haysaa in loo adeegsado hubkaas maxaan raadayay ma aha si loogu soo dabaal lahaa nabad wadanka Soomaaliya kaliya laakiin sidii maxaan raadayay ay dhibaato uga soo gaarlay wadamada shaarka waxaad kale ka hadasheen in aad warar ka qabtaan iyadana oo aydan ogolaanaynin in sadadka u dhinteen in deegaano ka tirsan Soomaaliya